ciidamada Somaliland ayaa habeen hore laga saaray magaalada Laascaanood kadib dagaal culus oo ku dhaxmaray ayaga iyo ciidamada xaquudirarka ee SSC. xaaladda Laascaanood ayaa shalay ilaa iyo maanta degan, waxaana gacanta ku haya ciidamada SSC kuwaasoo sugaya amniga shacabka. calanka Soomaaliya iyo kan SSC ayaa sidoo kale ka taagan goobaha muhiimka ee magaalada Laascaanood tan iyo markii laga saaray maleeshiyaadka Somaliland. dhinaca kale, dhammaan degmooyinka iyo deegaanada SSC ayaa maanta waxaa ka socda abaabul mudaharaadyo waaweyn oo lagu dalbanayo in Somaliland isaga baxdo gobolka Sool. sidoo kale, ilawareedyo aanu helnay ayaa inoo xaqiijiyay in ciidamada soo duulay iyo kuwa u dhashay gobolka Sool ay hareereeyeen kala shaki aad u weyn. labada ciidan oo ku midaysan magaca Somaliland ayuu saameyn xooggan ku yeeshay kacdoonka shacab ee ka socda magaalada Laascaanood. arrintani ayaa ku soo beegantay xilli xiisadda Laascaanood isu rogtay dagaal hubaysan oo u dhexeeya Somaliland iyo SSC. magaalada Laascaanood oo laga saaray ciidamada Somaliland waxaa saakay ka taagan calanka Soomaaliya, waxaana gacanta ku haya ciidanka xaquudirarka hubaysan ayadoo ay taageero buuxda ka helayaan shacabweynaha Soomaaliyeed. shacabka magaalada Boosaaso ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada Boosaaso ayagoo muujinaya sida ay u garab taagan yihiin shacabka Laascaanood gumaysiga maleeshiyaadka Somaliland. waxa ay sidoo kale ka dhigayeen in si xoog ah loo diiwaangeliyo codbixiyayaasha doorashada deegaanada ee Puntland, ayadoo Siciid Deni uu weli ku dhagan yahay doorashada laga deeriyay ee qof iyo codka ah. wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Deni Cabdi Juuxa ayaa sheegay inuu isdiiwaangeliyay doorashada golayaasha deegaanada ee soo socota. kaarka diiwaangelinta uu soo dhigay Facebookgiisa rasmiga ah waxaa ku tilmaaman in uu isdiiwaangeliyay saqdii dhexe oo 9 daqiiqo dhaaftay. tani waxay ahayd ka hor inta aan sida rasmiga loo bilaabin hawsha diiwaangelinta codbixiyayaasha, taasoo caddaynaysa in doorashada qof iyo codka ee lagu ballansan yahay uu musuqmaasuq ku lifaaqsan yahay. sidoo kale, xildhibaan Maxamed Faarax Dalmar oo ka soo jeeda Puntland kana soo jeeda gobolka Sool ayaa xilka iska casilay, isagoo sabab uga dhigay in Puntland aysan diyaar u ahayn difaacidda Laascaanood iyo gobolka Sool. iscasilaadiisa ayuu taageero ugu muujinayay shacabka soo doortay, kuwaasoo muddo 7 ah la kulmayay gumaad ay ku hayeen maleeshiyaadka Somaliland.